أكسونو إن كنت هلا أنا love you My more than reaction to my seeing life my video أنا blow حبك up. يا حبيبي nakupenda mimi sana وأوجدنا شقيقة. waxaa maalmahan si aad ah baraha bulshada looga hadalhayaa heys ay ku luuqeysay fanaanada Nimca Habi. heystan oo si weyn looga daba dhacay ayaa soo jiidatay dad badan oo ajaanib ah oo isticmaala baraha bulshada. heystan waxay xitaa soo jiidatay warbaahinta adduunka qaarkeed iyagoo wax ka qoray sababta heystan ay sidaan ugu soo shacbaxday. muuqaalada ugu badan ee lagu baahiyo baraha bulshada ayaa ku saabsanaa heysta Nimca Habi, waxaa ka falcelinaya dad aad u badan oo ajaanib ah. heystan oo erayadeeda ay ku jiraan luuqado kala duwan ayaa xiise gaar ah u yeelatay dhageystayaasha caalamka oo aad u soo jiidatay. heystan ayaa la sheegay in aad loogu dhageysanayay maqaayadaha lagu caweeyo ee magaalooyinka London iyo New York maalmihii la soo dhaafay. bilihii la soo dhaafay waxaa heystan ka daba dhacay malaayiin qof oo adeegsata baraha bulshada iyadoo si weyn loogu ciyaarayay aroosyada ka dhaca dhulka Soomaalida iyo dalalka dibadda. Nimca Habi oo wareysi siinaysa warbaahinta waxa ay sheegtay inay aad ugu faraxday markii ay dhawaan aragtay in heysteeda ay si weyn u qabsatay caalamka. aad baan ugu farxay, dareenkaygana ma cabiri karo. waxaan ogaaday in adduunka laga aqoonsaday. haatan waxaan ahay qof caalami ah, ayay tiri Nimca Habi. waxay intaa ku dartay in heystayda ay soo jiidatay dadka ajaanibta ah isla markaana ay ku faraxsan tahay in dhaqanka Soomaalida la jeclaado, heysteedana ay qayb ka tahay. waxaan arkay heystayda oo ay ku luuqeynayaan wiilal cadaan ah, sidoo kale gabdho Aasiyaan ah ayaa ku heysaya, dhammaantood waan daawaday. Nimca Habi waxay 2015 ku soo biirtay fanka iyo suugaanta, waxayna xilligaas bilowday in heesaheeda ay geliso baraha bulshada. haatan waxaa soo caanbixiyay heystan oo markii ugu horeysay la duubay sanadkii 2017. waxaa la dhihi karaa arrintani waxaa ka qayb qaatay baraha bulshada oo ay dhalinyarada Soomaalida si weyn u adeegsadaan. Nimca Habi oo dhawaan ku soo biirtay barta TikTok ayaa haatan waxaa boggeeda ku soo xirmay in ka badan 200,000 oo qof, halka ay calaamada jamasho ama likes-ka ay saareen in ka badan 2 milyan oo qof, halka muuqaalada qaar ay soo dhigtay bartan ay daawadeen in ka badan 4 milyan oo qof. waxaa durbadiiba ay heshay astaanta buluuga ee la siiyo dadka caanka ah. fanaaniin iyo majaajilistayaal caan ah oo u dhashay dalka Mareykanka ayaa ka mid ah dadka iska duubaya muuqaalka heesta isii nafta ee Nimca Habi. Baashi Cumar, Bilan Radio, Nairobi.